ninkan wuxuu ku xanaaqsan yahay dubaha ama buruska uu ku garaacayo waa kabo dacsa ama slippers ah oo 3 sano ka hor isagoo aad u qanacsan uu ka iibsaday shirkadda qaaliga ah ee Gucci waxaana laga siiyay uu ka bixiyay lacag gaarayso $450. I paid $450 for these Gucci slides. لكن بريها hadda soo dhaafay yani soo qarxinta dadka ka shaqeynaya warshadaha Chinese-ka markaasi ay soo qarxiyeen brandiyada waaweyn ee galbeedka ayuu wuxuu ku ogaaday markaa in qiimaha kabahan lagu sameeyayba in ka yar $1 waa 75 senti. haddaba ninkan kaliya ma aan dad badan oo Amerikaan ah ama yani galbeedka kalaba degan ayaa arintan qaarkood ay aad moral jab ugu noqotay oo ka xanaaqay oo macnaha dareemay in la dhici jiray qaar kalena aad ay ugu farxeen. insha Allah marka muuqaalkan arintan oo maalmihii la soo dhaafay ba haysato adduunka ayaan dhinacyo kala duwan ka istaageynaa. horta anagoo ka bilaabi doono waxa keenay dadkan hadda waxaan sameynayo dhanka China waxa ay ka faa'iidayaan waxa ay maaragtay u dhimin karto shirkadaha sidan loo soo qarxiyay ama loo soo fashiliyay iyo guud ahaan xaaladda sida loo saadaalinayo marka inay ku dhamaanayso. soo dhaw ka faa'iidayso habka casriga ah ee Premier Virtual Card oo si fudud oo degdeg ah uga dalbo Premier Wallet. haddii aad ku sugan tahay dalka ama dibaddaba ku hel daqiiqado gudahooda kaarkaaga kaasoo kuu fududeynayo adeegyadan online shopping wax ka iibsasho degdeg ah caalamka oo dhan tap to pay lacag bixinta casriga adigoo adeegsanayo mobilkaaga Android-ka ah wearable integration adigoo kaarka ku xiran karo agabyada la xidho sida saacadaha Frantic iyo waxyaabaha la mid ah. haddaba ka gudub caqabadaha oo la jaanqaad habka casriga ee lacag bixinta. qaybta hoose description-kan waxaa yaalo muuqaal ku tusayo habka aad u soo degsan karto ama aad u samaysan karto Premier Virtual Card. maasanid. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. dhammaan asxaab sharafta badan soo dhawaad mar kale ku soo dhawaad muuqaal kale walaalkan saaxiibkan Ismaano soo channelka sidoo kale Facebook page-ka soo pro mar kale waxaan kula ku maasantahay daawashada muuqaalkan aad daawanayso iyo waqtiga aad ku bixinayso. waxaan ku bilaabnaa su'aal horta marka hore weliga alaabo qaali ah dukaan ma ka iibsatay oo yani alaabtaasna laga yaabo in dukaamo kale markii aad tagto qiimo kaas aad iyo aad uga jaban aad ku heli karto. tusaale ahaan kama hadlayno yani computer oo kale aad iibsatay adigoona fiirinaya waxyaabaha aad ku qabsan karto oo kale taas oo kale kama hadlayno laakiin waxaan ka hadlaynaa kaba iyo maaragtay dhar iyo waxyaabo accessories iyo waxyaabahaasi oo kale oo de meelaha qaarna laga yaabo in aad uga hesho qiimo aad iyo aad u fiican oo jaban alaabtiin almost isku quality ay tahay laakiin dukaanada qaar ma ka iibsatay because magacaas ay leeyihiin darteeda kadibna alaabtaasi ma dareentay in ay quality ahaan ay aad u fiican tahay ay welibana ku raagtay oo ay xabaar ku taalo. haddaba ma diidayno in alaabta quality ahaan ay kala duwan tahay marka ay noqoto soo saaridda yani alaab walbana alaabta ay ka qaalisan tahay laga yaabo in ay si ahaan markaasi uga tayo fiican tahay ama uga quality fiican tahay laakiin haddana meeshaasi gudaheeda waxaa ku jiro arrin yar oo maaragtay psychology ahaan dadka saamayso. tusaale ahaan aan kuu sheegaya kaba ayaad waxaad ka bixisay lacag gaarayso $800 meelahaasi mararka qaar kabahaasi sababta ay kugu yeelayaan ma ahan tayo ay kabahaaga kale oo aad ka bixisay 120 ama 180 ama 50 meelahaasi waa adiga ilaalintaada maadaama maskaxdaada aad u sheegtay in kabahan ay yihiin kaba tayo leh lacag badan aad ka bixisay brand ahaan aad jeceshahay marka inaad dadka tusto ama ay kugu arkaan si yani meel sare oo kale lagugu maleeyo ama yani de lagugu qiimeeyo kabahaasi yani adigoon iska warhayn ayaa waxaa noqonaysaa qof ilaalsho meelaha qaar u qaadan xilliyada qaar oo maaragtay occasionally yani ama wax qaar ay jiraan ama meelo qaas ah u socdid aad ku lebisato si aad isugu muujiso oo xitaa waxaa laga yaabaa markii hore aad iibsanaysay in lagaa qaado lacag kaloo dheeriya iyadoo lagu leeyahay macnaha kabahan yani waxay u baahan yihiin in hanaan kale la sii marsiiyo kaasoo markaasi wasaqdi waxyaabahaasi ka celinayo kuna fududeynayo in hadhowdii aad dhaqi karto oo maaragtay si sahlan aad u dhaqi karto. marka intaasi oo dhan marka la isku dardaro inta badan sababta ay kabahaasi kugu raageen waxay noqonaysaa ma ahan tayada ay leeyihiin laakiin waa waxyaabaha hadda aan soo sheegnay oo ku gadaaman. anu galno gudaha isbuucidii ama bilihii ugu dambeeyay la soo dhaafay sidaan ognahay canshuurta ama tarifiska Mareykanka oo maaragtay ninka la yiraahdo Donald Trump uu sare u qaaday wadamo badan markaasi uu ku qaaliyay ayaa waxay keentay horta in Mareykanka dagaal canshuureed uu la galo dunida kale yani wadamo badan oo iska celin karin alla ilahay ama yani wixii la dul saaray okay iska noqotay way jiraan. China ayaa maaragtay kulay
waxa ay noqotay dad markaasi ay wada tirsadaan ama la isku soo qaado. China iyo Mareykankana canshuur dagaaleedkooda xilliga uu bilowday hadda ma ahan, waxay ka soo bilaabatay bishii koowaad ee sanadkii 2018 oo markaasna welibana uu madaxweynaha isla Donald Trump. Haddaba xilligaas ayaa la sheegay in canshuurta dul saaran ama la dul saarayo alaabaha ka imaanaya China soo galaya Mareykan inay noqotay markaasi 20%. haddaba tii ayadoo jirta ee haddana waxaa la sii sheegay in haddana markaan dambe ay haddana tii ka dartay. weliba bishan hadda aan ku jirno April waxay gaartay laga bilaabo 25% ilaa iyo alaabaha qaar ayaaba waxay noqdeen yiri 45% taarifka ama canshuurta saaran. qofkan ogeyn kulay taarifkan wuxuu u shaqeeyaa macnaha haddii adiga aad tahay qof American ah shirkadna ku leh wadanka Mareykanka alaabtaadana laga keenayo China, macnaha adigii ganacsadaha ahaa ayaa waxaad bixinaysaa inta dheeriga ah ee laga rabo. taas marka wadanka China ayagoo aynan ahayn dadka lacagta dheeriga bixinayo haddana waxay u saameynaysaa anigii oo American ahaayo wadankii China alaab ka keensan jiray haddii la igu qaaliyo ama lacag dheeri inaan bixiyo ay noqotay waxay igu adkaynaysaa marka in aan ka fikiro in aan alaabahaygii intii oo kale aan ka soo qaato. waxay noqonaysaa marka inaan meel kale raadso. sida darteed marka maadaama China uu yahay yani suuqa ugu balaaran ee Mareykanka wax ka soo galo iyo kale inta badan dunida kaleba ayaa waxay noqotay marka in dadkii Amerikaanka ah oo China alaabta ugu imaanaysa ama shirkadahiiba in wadamada kale ay fiirshaan sida Vietnam iyo wadamo kale alaaba ay ka keensadaan ama loogu soo sameeyo. halkaas China marka waxa uga dhacday dharbaaxo kulul sababtoo ah adeegyadii laga sameysanayay ayaa hoos isku dhigay. marka waxyaabo kale oo kulay dagaal canshuureedkan ku saabsan oo Mareykanka iyo China u dhaxay inkastoo ay jiraan. hadda marka focuskeena waxaan soo saareynaa mawduucan hadda aan ka hadlayna ee waxa maalmihii la soo dhaafay markaasi bilaabatay wax la yiraahdo trade war talk ama China talk. warshadaha China ee maaragtay alaabaha soo saari jiray oo inta badan og siraha iyo maaragtay shirkadaha lectureska ee Mareykanka ama galbeedka ee waxyaabaha siin jireen in ay maaragtay soo sameeyaan muuqaalo ayagoona fashilinayo adeegyada shirkadahaasi wadankani looga sameyn jiray ama waxyaabaha loo soo saari jiray ayagoona yiri marka inta badan adeegyada shirkadahaasi oo maaragtay alaabahooda galbeedka marka laga iibinayo la leeyahay macnaha made in Italy, made in France, meelahaasi waxay leeyihiin ba annaga ayaa sameynay, annaga ayaa soo saarnay, qiimo aad u jaban ayayna nooga iibsadaan. kadibna waxa la sii mariyaa meelo kale, hawlo kale ayaa laga qabtaa, waxaana lagu sii dhijiyaa label kale oo ah meelaha kale oo wadamada kale la sheegay in lagu sameeyay, waxaana lagu sii daraa markaasi oo lagu xardhaa loogooyinkooda. sidaasi ayaana markaa dadkaas kale qiimahaas aadka u badan looga iibshaa. waataan hadda hordhacaan usoo qaadanaynay tusaale ahaan dacasaha slipperska ninkani laga siiyay $450. marka akauntiyadan TikTok ah oo tirada badan oo hal mar banaanka usoo baxay ayaa waxa ay bartilmaameedsadeen inta badan dhammaan brandiyadii oo luxury-ga ah oo ay ka mid yihiin Gucci, Prada, Louis Vuitton, Chanel, Nike, yacni kuwa dharka, accessorieska iyo sidoo kale xitaa alaabaha isqurxinta meelba kama aysan tagin oo dhammaantooda waxay leeyihiin markaa anaga ayaa halkan ku sameyno oo kadibna anaga ayaa nalaga qaata, idinkana waa dacantiin. xataa tusaale ahaan ninkan waxa uu muujinaya ama uu dadka tusaya boorsadan maqaarka laga sameeyay ee qaaliga ee shirkadan Hermes Birkin ay iibiso. yacni uu leeyahay qiimaheeda waa $38,000 marka aad ka iibsanayso shirkadaasi. laakiin wuxuu yiri annaga in boorsadan aan sameyno marka aan sameynano waxaan ugu qaadataa $1,400 kaliya. haddaba akaunadan TikTok ee Chinese-ka oo laga expose gareynayo arrimahani ayaa sida aan xitaa marka aan sii fiirinaya aan arkay qaarkood inta badan waa la xiraa. weli haddana account kale ayay soo samaystaan, haddana mar kale ay muuqaal soo sameeyaan, taasoo markaasina ay leeyihiin weliba shirkadaha waaweyn oo aan yacni fashilintan ku wadno ayaa intay naga daba yimaadaan macnaha sidaan rabaan inay noo caburiyaan ama arrintan aanan muujinin. way dhici kartaa. hadda aan usoo leexano dhanka iyo dadka waxaan sameynayo ayaga waxay ka faa'iidayaan. horta koow waxay ka tahay rad ficil, macnaha in ay jawaab bixiyaan oo maaragtay ay Mareykankana ku tusayaan ayagaba culayska la soo saaray ayagana sidoo kale inay saaraan ayagoo markaasi culayska iyo cadaadiskana ka aadaya dhanka iyo shirkadaha waaweyn dadkana ku tusay macnaha sida ay u qiyaamayeen beentan ay ugu sheegayeen. China-na loogu calaamadeeyay in waxyaabaha ay sameeyaan kaliya ay yihiin wax raqiis ama aan tayo lahayn, halka waxa ay ayaga tayada ku sheegayaan dadka ka iibinayaanba si hoose markaasi China loogu sameeyo. taas ayadoo mid tahay haddana waxa ula sii jirto in ay suuq
ku helaan maadaama dhanka iyo Mareykanka uu culays ka soo fuulay ama uu ka soo fuulayo in adduunka kale markaasi ay suuq ka helaan ayagoona leh alaabahan sidaan oo kale ba anaga ay sameyn jirnay idinkan waa idin sameyn karnaa hadii aad anaga nala deal gareysaan ama aad alaaba naga soo doonataan macnaha yeeyanba cid inoo dhaxayno idinkaba toos noogu imaado qofkii rabo in aan wada deal gareyno ama aan alaabo u sameeyno hadda marka dadka reer galbeedka arintan markay soo gaartay oo la soo shaaciyay kadib falcelintooda waxay kala noqotay inta badan labo qaar horta way ku farxeen oo waxay yiraahdeen way ku fiican tahay macnaha dadka lacagaha haystay oo yaani shirkadahan lacagaha badan kumanaanka ku siin jiray in waxyaabo yar oo simple ah markaasi ay uga iibsadaan iyo dadka oo maaragtay sidaas loo aqal xadayo lacagtooda intay save gareystaan ayagoo u baahan shay yar kumanaan ka bixin jiray labadiina baydan ku fiican tahay macnaha ku qaar oo iibsan jirayna ayagana sidoo kale naxdin ayay ku noqotay hadda marka hadii aan soo leexano shaacinta ama fashilinta ay sameeyeen groupkan Chinese-ka maxay ka dhiman kartaa shirkadahani aniga aan sida ay la tahay waxba kama dhiman kartaa ayaa la dhihi karaa sababtoo ah dadkaasi customerskooda way haystaan oo inta badan xitaa arimahani dadka ka qeelinayay ma ahan customerska saxda ah dadka customerska ay haystaan waa dadka oo aan weli taajiriinta noqon oo maaragtay lacagaha aad ku badan aan helin laakiin rabo in ay u muuqdaan يعني rabo inay dadka tusaan in ay waxyaabahaas haystaan ama iibsan karaan ama ay leeyihiin inta badan dadka oo maaragtay bilyaneerada ama lacagaha aad ku badan haysto kuma arkaysid ama kuma badno in ay xirtaan brandiyadan waaweyn dharkooda ama sheeyadooda oo kale markaasi inay ku labistaan oo dhar caadi ay iska xirtaan laakiin dadka inta badan oo maaragtay dadkan customerska u ah waa dadka dhexe ama dadka rabaan markaasi inay dabaqada si fuulaan oo dadka isku muujiyaan sababtoo ah brandiyadan qaaliga ah waxay dhiseen sheeko waxay sameeyeen sumcad waxay dadka qaar ay aaminsiiyeen in marka ay alaabahooda xiran yihiin ay dadka kale ka muhiimsan yihiin sida darteed marka dadkii sheekadaasi lagu xiray ama ay ahayd qaarkood waxa laga yaabaa inay horay u ogaayeenba in waxyaabaha qaar oo laga iibinayo lacagtaasi aysan u qalmin sababtay u iibsanayaan waxay tahay waxani inta badan dadka ma wataan oo marka la arko boorsadaada Google lagu search garay ama la ogaado waxa la arkayaa in lacagteeda ay kumanaan kun oo dollar ay tahay marka qof kale uma sahlanaanayso in alaabtaas oo kale uu haysto sida darteed marka dadka noocaasi ku fikirayo oo ah ma dhamaanayaan shirkadahana customerskooda waa dadkaasi ugu dambeyn marka ilaa aad waxa la dhigi karaa arintan hadda soo baxday ama shaacinteeda waxa faa'iido ku qabo ama attention gaar ah oo markaasi suuqgeena u noqon kara ka helay qolada Chinese-ka laakiin qolada kalena ilaa hadda soo ma bixin wax cadeynayo in khasaare uu soo gaaray walow la leeyahay marka loo fiisho sanadkii hore ee 2024ka brandiyada qaaliga iyo maaragtay iibkooda waxa uu hoos u dhacay 2% marka kulay 2% ma ahan wax sidaas u badan laakiin kulay waan isla arki doonaa halkay tagto iyo meesha ay ku dhamaanto